nin ayaa xaaskiisii ku yidhi waxaan u xiisay reerkayga maadaama aanan muddo is arag, waxaan rabaa inaan beri casuunno oo qado u samayno. Xaaskii ayaan iyadoon warkiiba hubsan oo xanaaq ka muuqdo waxay tidhi insha Allah way iska hagaagi doontaa. Ninkii ayaa yidhi waa yahay, waan wacayaa oo waan casuumayaa. Subaxii dambe ayuu ninkii shaqadii iska aaday. Hal saac kadib ayuu gurigii ku soo laabtay maadaama duhurka casuumaad ay jirto. Markii uu gurigii yimid ayuu xaaskiisii yidhi miyaad karisay qadadii? Maxaa yeelay reerkaygu waxay iman doonaan saacad kadib. Xaaskii ayaa ku jawaabtay maya, ma karin, waayo reerkaagu shisheeye ma aha, waxay cuni karaanna way yaallaan guriga. Ninkii ayaa yidhi allow kuu dembi dhaaf, maxaad shalay iigu sheegi weyday inaadan qado karinaynin? Maxaa yeelay reerkayga dhowaan ayay imaanayaan, maxaan sameeyaa hadda? Xaaskii ayaa ku tidhi wac oo ka raaligeli arrintaas, una sheeg inay shisheeye ahayn oo ay guriga iska yimaadaan. Ninkii isagoo xanaaqsan ayuu gurigii ka baxay. Daqiiqado kadib albaabkii ayaa la soo gargaraacay. Xaaskii ayaa kacday oo albaabkii furtay. Way naxday oo way amakaagtay markay aragtay cidda albaabka taagan. Waa qoyskeeda oo ay ku jiraan aabbaheed, hooyadeed iyo walaalaheed. Aabbaheed ayaa ku yidhi aaway ninkaagii? Waxay ku tiri wax yar ka hor ayuu baxay. Aabbaheed ayaa yidhi shalay ayuuba nagu casuumay qado, maxay ku dhacday inuu guriga ka baxo inagoon imaan? Xaaskii ayaa warkaas aad uga naxday, waxayna bilowday inay gacmaha madaxa saarato iyadoo la yaaban oo garan la' waxa ay samayso maadaama cuntada guriga taalla aysan ku habboonayn qoyskeeda. Si degdega ayay taleefan ugu dirtay ninkeedii oo ku tiri maxaad iigu sheegi weyday inaad reerkayga qado ku casuuntay? Soomaalidu waxay dhahdaa god ha qodin, haddaad qodana ha dheereen, ku dhici doontida ma ogide. Ninkii ayaa siiyey isla jawaabteedii hore oo kale, wuxuuna ku yidhi reerkaagu waa qoyskayga, kaygana waa kaaga, ma jirto wax farqi ah oo u dhexeeya markaa. Iyadoo xishoonaysa xaaskii ayay ku tiri waa yahay fadlan cunto diyaarsan horay noogu soo qaad marka aad imaanayso maadaama cunto nagu filan aysan guriga oolin. Ninkii ayaa yidhi aad ayaan uga xumahay, meel fog ayaan joogaa, reerkiina ma ahan qariib ama marti ee sii cuntada guriga taalla sida aad u rabtay inaad reerkayga u siiso cuntadaas. Isla markiiba taleefanka ayay ku jartay iyadoo xanaaqsan. Qoyskeediina waxay cuneen wixii Ilaahay u calfay oo guriga yiilay. Waa tahay saaxiibayaal, sheekadii halka ayay ku soo idlaatay, balse su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay ninku miyuu ku saxan yahay inuu xaaskiisa sidaa ku sameeyo? Nala wadaag aragtidaada ku aadan sheekada oo hoos inoogu reeb, sidoo kale muuqaalkan inoo sheer garee oo asxaabta kala gaarsii. Ciid mubaarak.